tirada dalka Mareykanka ku nooli waxay cagacagaynaysaa qiyaastii 320 milyan oo qof. dabka layrtiruguna waa shayga ugu muhiimsan nolosha dadka Mareykanka, waana mid ay si aad ugu tiirsan tahay noloshoodu. sanadkii 2014 ayay ahayd markii Dr. Peter Bray, madaxa fulinta ee golaha amniga gudaha iyo ka qaranka ee dalka Mareykanka uu sheegay in xaalad amni darro soo food saari karto waddanka Mareykanka haddii ay cid ku qaado weerar dhanka electromagneticska ah oo ay fulinta weerarkaasina noqoto mid hirgasha. xilligaas oo ay suuragal tahay in 90% dadka waddanka ku nool ay halis yihiin gaajo iyo cudurro, xaalad fowdo iyo deganaansho la'aan ahna ay meel kasta ka bilaabmi karto, iyadoo saadaashii Dr. Bray aanay noqonin midda keliya ee cabsida noocaas ka hadasha. laakiin 2 sannadood ka bacdi xilliga ayaa caalamkii dhanka daaqaadida tiknoolajiyadda Mr. John McAfee waxa uu soo bandhigay macluumaad kale maqaal lagu qancay oo uu weerarka jira ku waafaqsan yahay, isagoo si gaar ah u tilmaamay in xukuumadda dalka Mareykanku ay diyaargarowgii ugu sameeyay ka samaysay dhacdo noocaas oo suuragal inay timaado, waxaana lagu sii adkeeyay suuragalnimada dhacdadaasi iyadoo ay xilligan sii badanayaan cadowga dalka Mareykanku. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku eegaynaa haddii ay suuragal tahay dhicitaanka weerar noocaas oo yimaada. weerarka electromagneticska waxa uu ka iman karaa marka qumbalad nuclear lagu qarxiyo hawada sare, taasoo shucaaca ka imanaya oo sida dhibicda roobka oo kale ugu soo daadanayo xadhkaha layrtiriga qaada. kadibna xadhkuhu waxay shucaaca ku soo biiray isaga gudbin doonaan dhammaan agabka elektaroonikada ku shaqeeya ee xilligaa shidan, kuwaasoo shoorgaroobaya oo xaaladda ka bixi doona. khatarta suuragalka ma aha mid ay xukuumadda Mareykanku iska fogeysay suuragalnimadeeda, iyadoo barnaamijka doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee 2016 cabsi dheeraad laga qabay in natiijadu ay saameyn ku yeeshaan weeraro dhanka electromagneticska, taasoo dhicitaankeedu dalka ku sababi karo in la waayo adeegga quwadda korontada, nolosha malaayiin ruuxna khatar gelin kara. taa darteedna xukuumadda Mareykanku waxa ay ku taagan tahay sidii daraasad looga sameyn lahaa qadiyadda noocaas, heegana loo gelin lahaa cududda ciidan ee lagama maarmaanka u ah sidii looga hortagi lahaa weerar qaabka ku yimaada. hay-adaha dhanka soo saarka saanada ciidamada ee dalalka waaweyn ee dunida qaarkood waxay horumariyeen samaysashada hubka electromagneticska kaasoo shaqo ahaan ka madax bannaan quwadda nuclearka. bishii Juulay ee sanadka 2016 ayay ahayd markii dowladda Ruushka ku dhawaaqday in militarigu diyaariyeen jiil cusub oo diyaaradaha dagaalka kuwaasoo ku gaashaaban hubka electromagneticska diyaaradahaas oo ay suuragal u tahay inay saldhigyada cadowga meel durugsan ka duqeyn karaan, sida uu cadeeyay Mr. Vladimir Mikhail, madaxa guud ee shirkadaha elektaroonikada ee dalka Ruushka. hubka electromagneticska ee diyaaradahan dagaalku xambaari doonaan waa mid ay macquul tahay inay 10,000 oo kiiloomitir kaga bartilmaameedsan karaan hadafkooda. sida loo yahay xilligan xidhiidhka caalamiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushku waa mid maalinba xigta sii xumaanaya. khubaro badan oo dhanka siyaasadda ka faalloodaana sida suxufiga caanka ee Ronald Oliver waxay aaminsan yihiin in sanadka 2017 uu xudun yahay khilaaf la mid ah kii dagaalkii qaboobaa ee labada waddan dhex mari kara. taa waxaa ku horeysay markii bishii February 2016 uu Professor Henry Cooper oo madax ka ah hay'adda la socodka bulshooyinka soo koreeya uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay horumarin ku wado hubka dhanka electromagneticska, taasoo khatar ku ah dalka Mareykanka gaar ahaan marka loo eego xiriirka labada dhinac ee aan wanaagsanayn. haddaba sida ay ku adkaysanayaan khubarada caalamiga ee dhanka dagaalada istiraatiijiga, cid kasta oo isku dayaysa inay dalka Mareykanka ku qaado weerar dhanka electromagneticska waa inay tahay mid ay u dhammaystiran yihiin arrimahan soo socda. ugu horreyn, waddanka weerarka qaadaya waa inuu haystaa hubka quwadda nuclearka iyo tiknoolajiyadda ciidamada ee casriga. waa in weerarka la qaadi karaa yahay mid gaari kara oo u gudbi kara xuduudda dalka Mareykanka iyadoo aan la ogaanin. shuruudahan oo dhammina waa kuwa ku adag dowladaha jira badankooda, waana inay maskaxda ku hayaan dalalka ka soo horjeeda Mareykanku in Mareykanku yahay dalka miisaaniyadda ugu badan geliya ciidamadiisa, taasoo gaadha qiyaastii 590 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkiiba. waana waddan haysta hubka nuclearka oo loogu talagalay inuu baabi'iyo dal dhisan guud ahaantii. sidoo kalena waa in maanka lagu hayaa in dal kasta oo weerar noocaas ku qaada Mareykanku uu la kulmayo jawaab celin la mid ah, taasina ay khasaare u tahay labada waddanba, maadaama burburku wada gaarayo ayna khasaarayaan nolosha in badan oo dadkooda ka mid ah.